السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa cali caamir xasan. kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. waxaad aragtaa waxyaabaha ku saabsan markii dawooyinka conclusion lagu sameynayo qalad badan oo dhaco. qaladaadkaas oo ku saabsan xagga milliliterska ama maxaa la dhahaa volumeka daawada oo khaldamo. waxaan halkan kugu soo gudbinayaa hooyo ama aabbo ama qof kasta oo quseeyo videogan inuu maanta kadib sixi doono insha allah qaladaadka ku saabsan markii caruurta yacni daawada la siinayo ama millimeterska oo maxaa la dhahaa dhaqaatiirtu daawada markay qoraan laakiin daawooyinka guriga lagu isticmaalo qaladaadka ka jiro kuwaasoo ku saabsan in macnaha nambarkii la rabay ama laga badiyo ama laga yareeyo. dabcan daawada markii maxaa la isticmaalayo waxaa la qaataa maxaa la dhahaa milliliters oo dhakhtarku ku qoray. milliliterskaasoo ah yacni cadadkii maxaa la dhahaa uu isleeyahay dhakhtarku uu ku habboon yahay dooskaas inuu maalinkaas qaato ama 24 saac. waxaa jiro marka waxaad arkaysaa waqtiyada qaar hooyo cunug sharoobo siinayso ama maxaa la dhahaa kaniini siinayso ama daawo kale oo solution kale ah siinayso oo ku saabsan oo macnaha khilaafsan sidii dhakhtarku soo qoray. dabcan waxaa inta ugu badan oo ka yimaada qaladkaas markii yacni guriga daawadu lagu isticmaalo oo daawadu aysan ahayn mid isbitaalka lagu monitor garaynayo ama lagu manage garaynayo oo neerska uu kor taagan yahay qofkii bukaanka ahaa ama caruurtii sharoobooyinkan iyo daawooyinkan loo qoray. badanaana waxay ka timaadaa markii caruurta yararka inta isbitaal subaxdii la geeyo outpatient ay noqdaan oo guriga lagu soo celiyo oo sidaas maxaa la daawadii hooyadii guriga u isticmaal yiraahdo. hooyo maanta kadib ha sameynin qaladkan haddii aad videogan daawato oo aad ku baraarugto. waxaa arkaysaa marka sharoobo waxaa la dhahaa 5 ml per 5 milligram ay ku qoran tahay oo cunugii laga siinayo ku dhowaad 7 ml 10 ml. waxaan u wacan qalad iyo faham darro xagga hooyada ah oo aysan ka fahamsanayn maxaa milligram kusoo aadayo maxaa milliliter kusoo aadayo. dooskan dhakhtarkii qoray imise milliliter ayaa laga rabaa imise milligram ayaa maxaa la dhahaa la siin karaa. marka waxaan rabaa inaan sheego halkan haddii ilaah yiraaho waxaa jiro waxaa la yidhaha tea spoonful ama table spoon ama qaado waxa u taqaano. qaadooyinka ilaa waxaa loo qaybiyaa shan ama ugu badnaan xataa ilaa 6 la gaarsiiyaa laakiin 4 ayaa ugu caansan oo aan sheegayaa si qaladkaas loo saxo qaadooyinkaasoo caruurta lagu siin karo daawada. maxaa laga wadaa marka 5 milligram per 5 milliliter micnaheedu waxay tahay halkii milliliter ee daawadan ama sharoobadan ka kooban tahay waxaa ku jiro 1 milligram. marka 5 milligram per 5 milliliter sidaas ayaa laga wadaa sharoobo kasta way ku qoran tahay. waxaa laga wadaa macnaha 5 ml waxaa maxaa la dhahaa kusoo aadayso 1 teaspoon hal qaado macnaha oo weliba tea ah kuwa shaaha lagu cabo. marka qaadooyinka iyo qaybahooda ayaan rabaa inaan soo gudbiyo. qaadooyinka marka 4 nuuc ilaa 6 la gaarsiiyaa markii la kala ablaablaynayo ama noocyada qaadooyinka laakiin 4 ugu caansan. kow waxa waaye 4 meelood mid qaado la yiraaho ama 1/4 teaspoonful. laba maxaa la dhahaa 2 meelood meel qaado ayadan la yiraahdo ama 1/2 teaspoon iyo mid la yiraaho 1 teaspoon iyo mid la yiraaho 1 tablespoon qaadada cunada lagu cuno ee miiska la saarto iyo mid full ahoo la yiraaho 1 teaspoon iyo mid la yiraaho hal loo qaybiyo 2 ama half teaspoon iyo mid la yiraaho hal loo qaybiyo 4 ama rubac teaspoon. afartaas ugu caansan qaadooyinka. dessert teaspoon mid la yiraahdo waa jirtaa waxay ka yar tahay 1 teaspoon iyo half teaspoon ayay u dhaxaysaa. sidoo kale waa afartaas marka waa 4 qaado ugu muhiimsan ee la isticmaalo. marka 1 teaspoon full hal qaado oo midda shaaha oo dhammaystiran waxay u dhigantaa 5 ml ayay u dhigantaa.
halka waxaa la dhahaa 1 tablespoon hal qaado oo ah midda cunada lagu cuno oo miiska saaran ama raashinka lagu cuno miisaska la soo saarto ay u dhiganto 15 milliliter ama 15 milliliter. marka kuwaasi waa macnaha qiyaasaadka ama measurementski ku saabsanaay qaadooyinka. weliba qaadooyinkan measurementskooda waxay ku salaysan yihiin waxa la yidhaha metric systemka waa systemyo badan oo lagu cabiro measurementska waxaana ugu muhiimsan m oo u taagan meter iyo kg oo u taagan kilogram iyo s oo u taagan second oo timeka lagu cabiro. marka mar walba qaladka macnaha oo ku saabsan xagga dawada oo meeshii laga rabay hooyadu inay cunugan siiso 5 ml per 5 milligram ayaa waxay siinaysaa fur weyn inta ku cabirto waxay noqonaysaa laga yaabaa inay ka badiso 7 ml siiso cunugii laga yaabaa inuusan awood u lahayn ama inay ka yareyso 2 bar ay siiso ama 3 ay siiso iyadoo laga rabay inay siiso 5 milliliter oo 1 teaspoon full ah hal qaado oo kuwa shaaha ah oo buuxda ah. marka mar walba waxaa muhiim ah marnaba inaysan maamadu yacni daawadu iyadu qiyaasteeda ku siinin ama sharoobada. qaadooyinkana sidaas ayaa loo kala ablaablayaa waxaana loo fiiriyey qaadooyinkan sizekooda waxa la yidhaahdo metric system oo ugu caansan tahay 3 m oo meter ah kg oo kilogram ah iyo waxaa la dhahaa s oo second ah. saddexdaasna waa 3 ka mid ah systemka la yiraahdo metric oo lagu sameeyo measurementska general ama standard measurementska. marnaba marka waxaad arkaysaa hooyo laga yaabaa inay ama degdegsan tahay ama maxaa la dhahaa aysan fahamsanayn aysan wacyi u haysan qaabka ay cunaha yarka u siinayso dowska ama qiyaaskii. tusaale ahaan warqadda dawada waxaa uu qoran oo dhakhtarku u soo sheegay si 5 ml ka si ay ugu soo aado 5 milligram u noqoto. marka waxaa laga yaabaa inay yacni isticmaalinba teaspoon qaadadii aysan isticmaalin maadaama aan dhahnay 1 teaspoon waxay la mid tahay 5 milliliter. marka waxaa laga yaabaa inay iska isticmaasho fur yaroo iyada xaafadda u yaalay fur maxaa la dhahaa sharoobada la socda laakiin 5 ml aysan ku geynaynin inay ka weyn ay gaarsiinayso meel ka sarreysa ay gaarsiinayso ama waxaa laga yaabaaba inay afka u saarto ama waxaa laga yaabaaba silinga 10 ml ah inay inta isticmaasho ay 7 ml 8 ml ay cunug siiso. marka qaadooyinkana waxaa la dhahaa waxaa loo soo saaray measurements iyo wax lagu cabiro sidaas ayaana muhiima mar walba in la raaco standardka adduunka u degsan si dowskii daawada loo saxo. intaas ayaan rabay inaan baraarujiyo. fadlan haddii aad ugu cusub tahay channelka maxaa la dhahaa subscribe inoo dheh haddii aad Facebook naga daawanaysana pageka like inoo saar. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.